بليغ بيها يا حلا ما قيل مدير قرية عدال قرية عدال بليغ هذا وكاسا كله ولادك وحوادي يا كدبالنا أنا وكواس يا عيالك كدبالنا هويو برواقة ويا كلها دولك برواقة ما شاء الله والله متوان يا متوان حكوت على الأورا تم متى صوتاتك فنسي ناف عري العنوية ناف عري عذاب جبت رير حاج سليمان ناف عري نسيان فهمتين موجودة مال والبوق وحيال هالحبة وكل يسوع عرفت عنتك وعين جرنا مفتاح ويل كان قرب جوج واي ورجل جدود wuxuu ka mid yahay dadka martida ah oo imaado laakiin isaga reegal guduud waaye laakiin aniga uu isoo dhaweeyay laakiin maanta waxaan weydiinaa joowiga iyo wuxuu meesha ku arkay isaga hay soo dhaweey dhawaanay ma sha Allah magacay waxaan rajeynayaa inaad ay qoon doontaan waa Axmed Cabdullaahi Kaboole waxaan ka mid ahay jaaliyada Sweden waxa garabkayga taagan agaasimaha TV Abdullaahi Xirsi oo ninka nin caan ah runtii meesha aan joogno ma ahan meel ammaankeeda loo baahan meel aad dad cadow kale hawadu aad iyo aad u caraf badan tahay waxaan ugu soo dhaweeyay rag ee khiyaar oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan maqli jiray cadaado maxaa la yiri cadaado cudi kaamale haddana caraftii ku sii darsatay hawadaas iyo macaankaas iyo ma sha Allah inaan ka tagin ayaan maaragtay aan u malaynayaa ana gabar baa la cabay hilib baa la cunay hadii caano qaraa lagu sii daray xaalku caadi maaha shaaha lagu daray jago khayr Allah siiye 4 sano ka hor aan holan ku kulannay meeshan cagaar oo ka dhigay xataa cadaado way ka soo baxday waana u jeedaan agaasimayaashii madaxdii ciidamada daba taagna meeshan waa nabad galmudug ha guuleysato cadaado ha guuleysato dhalinyarada dhamaantood ha guuleystaan insha Allah hay agaasime maanta waa maalin weyn aadan u faraxsanahay inaan joogno balligii qoryaacado oo ah banaanka cadaado runtii maanta aad baan loo marti sooray waxaana ka maleysanahay haddaan basbaaskii iyo mooskii kula kulmay iyo baradhadii balligii qoryaacado wax dhiman ma laha caanihii dhayda maxaa dhahdaa neefkii sidiisii isku shuban wax la helka iyo maareeyaheenii oo dhan cadcad wata meeshu waa boor waa dhagax maanta waa beenood biyaha horteyda yaalla maanta waa beenood quraca hoostiisa biyaha ku jira waana arki doontaan gudoomiyaha wiila marka waxaan leenahay Soomaaliya soo ogaada dhulkan yar la moogaan hay maare soo dhaw aad iyo aad aan ugu faraxsanahay saxaabteeni saaxiibadeen oo nooc walba isugu jira rag madax ay ku jiraan xildhibaano agaasimayaal niman dhalinyaro ah oo maaragtay dawladda u shaqeeya gudoomiyaal dhammaantood inay maanta halkaan nagu soo booqdaan meeshan aan joognaa waa qoryaacada la yiraahdaa qoryaacado waxay u jirtaa magaalada Cadaado adigu 7 kiiloomitir 8 kiiloomitir ma sha Allah ku faraxsanahay waa arkaydin biyaha jiifa meel kasto barwaaqada xoolaha daaqaya qadaf fiican oo aad iyo aad u qiimo badan aan meeshan ku wada qaadana saaxiibadan oo ka yimid Dhuusamareeb safar dheer soo galay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta halkan ku wada damaashaadno soo dhawaada waa ku faraxsanahay inaad maanta halkan indhihiina aad ku aragtiin geedahan quruxda badan iyo dhirtan qurux badan iyo magaaladan oo dadkii waliba maaragtay dhirtan inta hadda ku wareejiyay marka waa mahadsantiin soo dhawaada madaxdana sharafta leh aad iyo aad kaga mahad celinaynaa maanta waa ku mahadsantiin sida noo soo dhaweyseen anagana waa idin kaga mahad celinaynaa sharaf iyo karaama leedihiin gudoomiyaha hore degmada hodan degmada cadaado cadaadana aad jiray ninkan degmooyinka waa soo dhameeyay amar ka soo bilaabay cadaado hadda degmada cadaado waaye gudoomiyaha waa mahadsantiin soo dhawaada Cabdullaahi Xirsi dhawaankayga maaraya waa mahadsantiin kulleeytaba waxaan joognaa maanta qoryaacado oo runtii qada aad u qiimo badan aan ku qaadanay iyo hawo macaan waxaan u sheegaynaa asxaabta kale iyo dhammaan inta na daawanaysa inay ogaadaan meeshan iyo barwaaqada ka jirta iyo nimcada maanta aan ku haysano waa mahadsantiin alxamdulillah kuma santaa biyaha u dhow waxaan sheegaynaa waa soconaynaa biyaha u dhow si waxaan sheegaynaa run u noqdaan baa isla way jilayaan moogta صح marka arinta maanta jilid maaha shacabka la tuso kaamirada hal la wareejiyo kaamirada wareeji qodaha raalli